wuxuu yahay anigoo Suldaan Xuseen Xaaji Cabdi Cabdilaahi inaan ka hadlo arrin dhawaan miidiyaha saameysay oo ku eegayd amba ka bilaabantay ciidanka qaranka sida wada ogeydeen amba hadaladii ugu dambeeyay salaadiin kamid ah qaranka Soomaaliland ay ka hadlaysay saraakiil la xidhay iyo taliyaha ciidanka qaranka ayaan arintaasan ka hadlayaa maanta Allahumma salli ala waxa kolka hore oo inaga reeban ciidanka qaranka Soomaaliland ee kala duwan in la siyaasadeeyo oo af qabiil lagaga hadlo oo oday ka hadla way naga xaraan waa waxyaabaha ka reeban ciidanka qaranku in la reereeyo ama shuruucda u gaarka ah cidi farageliso waa meelaha laba taabtaanka ee halbowlaheena ah waa meesha ummadani ku hurudo ay ku raaxaysato ay ku nasato waa meesha ay naftooda u horeen qaranku ciidanka qaranka ee jiida jooga iyo kuwa kale gudaha joogaaba oo waxa bulshada Soomaaliland ku dhaadato ee in la ilaaliyo mudan marka waxaan leeyahay arintaasi waa mid inaga reeban in laga hadlo oo oday ka hadlo oo arrin aan ogeyn laga hadlo sideedaba wadooyinka u dambeeyay ama sidii media ka socotay waxa ka hadlay oo u dambeeyay Suldaan Sabayse iyo Suldaan Barre wuxuu ka hadlayay sarkaal la xidhay oo ciidanka qaranka ah suldaankaasi toodayaasha mudakarka reerku ku jiray hadal aan meesha leegayna waa yiri oo aan qaranka ku haboonayn oo aan nidaamka ciidanka qaranka ku haboonayn oo nafkiisa ku haboonayn ayuu ka soo baxay suldaankaasi waa inaan hayb wadaagno waa salaadiinta beeshan magaca iyo deegaanka wadaagno waxaan ka raali gelinayaa on xaal ka bixinaya on qaranka Soomaaliland xaal ka siinaya on taliyaha ciidanka qaranka xaal ka siinaya arintii ka timi suldaanka waxaan leeyahay taliye aniga xaalka siiyay aniga ka raali geliyay arinkaasina mid ku qabta ma ahayn bariyahan dambe sideedaba reerkayaga waxaan lagu aqoonba ka soo baxay markasta oo ay xaalad ka hadlayaan xaaladda ciidanka qaranka ku dabaqan ciidanka qarankana waxaanu qabnaa inaanu nahay kuwa ku dhaataan ay ka bilaabmeen ay meesha gaarka ugu qoran yihiin qaranka Soomaaliland wuxuu ka bilaabmay stadiumka Hargeysa maalintii hubka dhigida lagu wareejinayay waxaanu nahay qabiiladii ku suntanaa in qaranku dhidbada isu taagan ku wareejiyay qaranka Soomaaliland hubkoodii hantidoodiiba iyo naftoodiiba meesha aanu dhisnayno ku dhaadanayno ku suntarayna maanta in anaga looga boqdo amba aflagaadi naga gaadho qaranka Soomaaliland ma xal ka siinaya waxaan leeyahay arkaasi meel ka dhacbo ahaa dhowr goor buu soo noqnoqday markii odayaasha dhaqanka reerkayo ka hadlayay arrintii Cismaan Geelle qaranka ciidanka qaranka farahay geliyeen markii ku xigtay nacnacba ka hadlay oo xildhibaan reerka ah waxa ugu dambeeyay Suldaan Barre oo shalay ka hadlayay intaasba meel ka dhacbay intaaba qaranka Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka qaranka waxaan xaal ka siinayaa arinta aan meesha laga meel ka dhaca dhaqanku wuxuu siisaba ka reeban yahay inuu nabadda ilaaliyo inuu wanaaga ilaaliyo inuu qaranimada Soomaaliland ilaaliyo sidan horaba naftayada iyo maalkayga ugu hore qaranka Soomaaliland baan imika ugu horeynaa cidii faragelin ku sameeyay qaranka Soomaaliland waxa kale oo jirtay in dadka qaar ay beelaha afka ka dhacaan beelaha dhaqanku waxa way ummadda u dhaxeeya ummadda oo dhan buu dhaqanku u dhaxeeya cid gaar ah maaha meel ay dhibaato ka dhacday inuu nabad ka keenaa loo baahan yahay inuu wanaajiyaa loo baahan yahay laakiin in magac dhaqan sitaa qabiil afka ku dhufto waxaan leeyahay waa meel ka dhac madaxweynaha qarankana waxaan leeyahay waan ka raali gelinayaa mudane madaxweyne arinta aan laga filaynin ee lagu dhaadan jiray in haddana maanta annaka waxyaabaan dhaqan u lahayn naga yimaado waan ka raali gelinayaa mudane madaxweyne waxa kale oo halkan hadal uga jeedinayaa bulshada Soomaaliland waa meesha aynu ku dhaadanay ciidanka qaranku sida bulshada Soomaaliland noo ictiraafta ay noo sharafto ay noo ilaalisay inaguna aanu ilaalin qaranka Soomaaliland wanaag baynu ka mudannahay markaynu halgamayna waan ku suntaray meel qiimo leh ka joognay qiimaheennii inaan dib u baabiin iyo raadkeennii waxaan leenagu aqooyo aanu naga soo bixi baan leeyahay tolkayga iyo tolkayban gaarsiinaya dibad iyo gudaba dhaqan iyo shacab waxaan leeyahay tolkayo hadalla aan meesha leegan baa markasta naga soo baxa oo inaan ku wada socon oo aynaan raalli ku kala ahayn haddana marka laga hadli waayo waxay noqonaysaa
in wixii la wada qabo ma wada qabnaan leh cidda hadal xajiin la tiraahdo iyada ku gaartay magaca reerkana kuma betasho laakiin wixii wanaagsan baan ku wada leenahay magaca reerka iyo ka qarankaba ku wada leenahay sideedaba dhaqanku markuu ninku dhaqan yahay dadku u dhaxeeya dadka markuu u dhaxeeyana dadku wadaynu kala jeclaysta maaha sideedaba suldaan bare ninka uu hadlayay ee odayga gaashaanlaha ah waa nin la xidida xididnimadu iyo qarannimaduna waa kala laba suusan ruuxid ku leeyahay ninkaas uu hadlayay anagana dixid noo leeyahay oo reerka uu qaba sharaf iyo milgaan u hayna tuuslaan barra qabana inaan tuuslaan barra qabana waxa uu adeeraa nuux oo isna xididku ka mid yahay inanta jaranka tan araba qaba arabo dhamusada ku jaran ku yahay markaas uu inoo ilaaliyo oo inoo ixtiraamo inaynu ixtiraamno oo inoo xishoono oo inoo sharafna wanaagsan